السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii Faalada Toddobaadka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Faalada Toddobaadka ee Sahal Media oo aan maanta uga hadlayno doorashooyinka ka socda dalkeena Soomaaliya. Fadlan daawade nagu soo biir oo followde page-keena aan ku leenahay Facebook-ga iyo YouTube-ka si aad ula socoto barnaamijyadeena xiisaha leh ee aan halkan kusoo gudbino. Sidoo kale la wadaag asxaabtaada lagna saar si barnaamijkeenu u gaaro shacabweynaha Soomaaliyeed iyo meel saraba. Doorashada qofka iyo codka ah ee Soomaaliya ka socota waa horumar weyn oo u baahan dib u eegis iyo saxiid. Soomaaliya waxay maanta ku tallaabsanaysaa marxalad cusub oo dhinaca dimuqraadiyadda ah, taas oo ku saleysan hirgelinta nidaamka doorashada qof iyo codka si shacabka Soomaaliyeed ay si toos ah uga qayb qaataan go'aaminta mustaqbalkooda siyaasadeed ee dalka. Waa tallaabo taariikhi ah oo mudan in la bogaadiyo maadaama dalka ay ka fogeynayso nidaamyadii xadidnaa ee awoodda siyaasadeed lagu koobi jiray kooxo gaar ah ama ergooyin tirayer. Doorashada qof iyo codka waxay shacabka siinaysaa xuquuq dastuuri ah oo ay ku doortaan hogaamiyayaashooda, waxayna kor u qaadaysaa isla xisaabtanka daahfurnaanta iyo ka qaybgalka bulshada ee siyaasadda dalka. Sidoo kale waxay fursad siinaysaa dhalinyarada, haweenka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada inay codkooda ku yeeshaan jihinta siyaasadda dalka. Si kastaba ha ahaatee, guusha nidaam kasta oo doorasho kuma xirna oo keliya maalinta codbixinta, balse waxay ku xirnaanaysaa tayada habraaca iyo sida shacabka loogu suurtogeliyo inay galaan doorasho xor iyo xalaal ah oo daahfuran. Haddaba daawade, waa maxay caqabadaha ka jira habraacyada doorashooyinka socda maanta? Mid ka mid ah dhibaatooyinka iyo caqabadaha waaweyn ee muuqda ayaa ah in codbixiyayaal badan aysan aqoon u lahayn qofka dhabta ah oo ay codkooda siinayaan ayna dooranayaan. Xaalado badan shacabka waxaa la hor keenaa astaamo xisbiyo, balse laguma wargeliyo musharaxiinta taariikhdooda, kartidooda iyo qorshahooda siyaasadeed. Sidoo kale, inta badan shacabka looma soo bandhigo manhajyo ama manifestooyin cadcad oo ay ku qiimeyn karaan siyaasadda xisbiyadu ka damacsan yihiin inay dalka ku hogaamiyaan. Taasi waxay keentay in codbixintu mararka qaar ku dhacdo dareen qabiil ama olole abaabulan halkii ay ku saleysnaan lahayd xog, faham iyo qiimeyn dhab ah. Waxaa kaloo jira eedeymo badan oo sheegaya in taageerayaasha xisbiyada loo abaabulo si ay u taageeraan calaamad gaar ah iyaga oo aan si qoto dheer u fahmin cidda ay dhab ahaan awoodooda u dhibayaan. Taageerayaasha waxaa loo diyaariyaa sidii olole abaabulan, balse inta badan laguma dhiirigeliyo inay su'aalo weydiiyaan musharaxiinta ama ay dalbadaan qorshayaal waxqabad ee xisbiga ay ka tirsan yihiin. Caqabadaha waaweyn ee la isweydiinayo maanta ayaa ah cidda dhab ahaan dooranaysa musharaxiinta. Haddii shalay oday dhaqameedku lahaa awoodda xulashada xildhibaanka deegaanka, maanta waxaa jira cabsi ah in awooddaasi u wareegtay hogaamiyayaasha xisbiyada. Shacabka waxaa loo soo bandhigaa laguna yiraahdaa oo codeeya calaamadda xisbiga, annagana noo daaya xulashada cidda idin matalaysa. Dalalka dimuqraadiyadda ah ee dunida, codbixiyuhu wuxuu si cad u garanayaa qofka uu dooranayo, taariikhdiisa, kartidiisa iyo qorshihiisa. Xisbiga waa aalad siyaasadeed, balse ugu dambeyn shacabku waxay codkooda siinayaan musharax ay aqoonsan yihiin. Taasina maantay kama dhex jirto ballot paperska doorashada maanta. Bal aan eegno musuqmaasuqa gudaha xisbiyada ka jira. Arrin kale oo walaac leh ayaa ah cabashooyinka la xiriira musuqmaasuqa gudaha xisbiyada iyo hababka loo maro soo xulista musharaxiinta xisbiga. Mararka qaar waxaa la maqlaa eedeymo ku saabsan in xubnaha xisbigu aysan door muuqda ku lahayn go'aanada muhiimka ah, isla markaana awooddu ku aruurtay shakhsiyaad kooban oo daaha gadaashiisa ka maamula go'aanada iyo siyaasadda xisbiga. Waxaa sidoo kale muuqata in dhammaan xisbiyadu aysan lahayn golo dhexe iyo guddi fulineed oo si buuxda u shaqeeya, taasoo dhalisay in go'aamada ugu muhiimsan ay ku koobnaadaan hogaamiyayaasha xisbiyada ama kooxo yar oo asaga u dhow. Haddaba marka hay-adihii
gudaha xisbigu daciif noqdaan waxaa sahlanaata in la yiraahdo go'aanka ugu dambeeya waxaa iska leh hogaamiyaha xisbiga. taasina waxay dhaawacaysaa dimuqraadiyadda gudaha xisbiga iyo midda dalka. casharada laga baran karo doorashooyinkii hore uga dhacay gobolka Banaadir iyo tii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. doorashadii ka dhacday maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa tusaale u noqotay cad doodaha noocan ah. dad badan ayaa muujiyay cabashooyin ku saabsan in codkooda uu galay xisbi ay garanayeen magaciisa iyo astaantiisa, balse aysan aqoon buuxda u lahayn musharaxiinta dhabta ah ee xisbigaasi soo xulay. arrintaasi waxay dhalisay dood muhiim ah oo ku saabsan codbixiyuhu xaq ma u leeyahay inuu ogaado cidda uu dooranayo ka hor inta uusan codkiisa dhiiban. jawaabtu waa haa, xaq ayuu u leeyahay inuu ogaado cid uu dooranayo. talada iyo gunaanadka faalada toddobaadka ee Sahal Media waxa ay tahay doorashada qof iyo cod waa horumar weyn oo Soomaaliya u horseedi kara dowladnimo, isla xisaabtan iyo matalaad dhab ah. laakiin si nidaamkani u noqdo mid shacabku kalsooni ku qabaan, waxaa muhiim ah in la qaado tallaabooyinka soo socda. in shacabka loo soo bandhigo musharaxiinta ay dooranayaan ka hor inta doorashada loo direerin. in waraqaha codbixinta lagu muujiyo magacyada iyo sawirada musharaxiinta iyo xisbigooda. in xisbiyadu soo bandhigaan manifestooyinkooda iyo qorshayaashooda waxqabad oo cad oo aan ahayn olole dadweyne ka hor inta aan loo direerin doorashada. in la xoojiyo dimuqraadiyadda gudaha ee xisbiga si ay u taabagasho dimuqraadiyadda guud ee qaranka. in la yareeyo meeshana laga saaro dhammaan musuqmaasuqa iyo saameynta shakhsiyaadka ku takrifala awoodaha xisbiyada. in shacabka loo daayo go'aanka kama dambaysta ah ee kala doorashada musharaxiinta. in la helo guddi doorasho oo ku wada qanacsan yihiin xisbiyada ku tartamaya doorashada. xisbiyadu ha soo sharaxaan xubnaha ay doonayaan, balse cidda lagu aaminayo hoggaanka dalka waa inay noqotaa go'aan ay si xor ah u gaaraan shacabka Soomaaliyeed. dimuqraadiyaddu ma aha in shacabka lagu yiraahdo oo coday astaanteyda annagana noo daa xulashada dadka adiga ku matali doona. dimuqraadiyaddu waa in shacabka loo ogolaado inay si toos ah u doortaan qofka ay rumaysan yihiin inuu matali karo danahooda kana dhabayn kara himilooyinkooda qaran. sidaas ayaa lagu gaari karaa doorashooyin xor iyo xalaal ah oo hufan, isla xisaabtan leh, kana tarjumaysa rabitaanka dhabta ah ee shacabweynaha Soomaaliyeed. daawadayaal, waxaad barnaamijkan kala socoteen warbaahinta Sahal Media. waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah injineer Axmed Maxamed Sahal. inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo kulan dambe oo xiiso leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.